الحمد لله سنة لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان دادك سومالية برنامج راديو بورمي سومالي كنديان تي في كان دقيستر راديو بورمي كان داودا عالم كتعالديسا سومالي كنديان تي في يبرث يوتيوب كان كلنا هاي سومالي كنديان تي في walaalayaal halkan waxaan ku soo gudbin doonaa taxana barnaamij diiniya oo la magac baxay yaan ka digtoonaana walaalayaal wax badan waxaan ognahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in cadawga aynu leenahay uu yahay shaydaanku dad badan oo Soomaaliyeedna cudurro kala duwan uu ku hayo shaydaanku iyo dhibaatooyin fara badan oo xitaa uu ku kalifayo in dad badan oo muslimiina ay u laayaan amdan iyagoo adeegsanayo shaydaanku oo ay ku xukumayaan gaalo haddaba waxaan rabnaa barnaamijkan si aad uga faa'iidaysataan dhammaantiin in aad ka dhagaysataan radio Boorame waxaana barnaamijkan uu inoo noqon doonaa taxane barnaamijkan waxaan u mahadnaqaynaa oo waqti galiyay oo soo diyaariyay Dr. Ismaan Macalin dhammaan dadka Soomaaliyeed barnaamijka dhageysanaya ku soo dhawaada barnaamijkii yaan ka digtoonaana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah alxamdulilah wasalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah amaa bacdi waxaan ku soo jirnay tixanihii yaan ka digtoonaana ahaa maanta waa qaybtii saddexaad haddii aan la yidhaahdo oo weli waxaan ku jirnaa shaydaankii iyo cadowtinimadii uu noo hayey horena xogaa baan usoo taabannay shaydaanku cadowtinimada uu dadka u hayo waa mid aad u fog oo sii horraysay tan iyo markii nebiyullaahi aadam la abuuray ilaa maantadan aan joogno ilaa qiyaamuhu uu ka dhacaayo oo markiiba jannada laga soo bixinayey nebiyullaahi aadam iyo xawaa yaa alla wuxuu yidhi waqulna ahbituu bacdukum libacdin caduw ka soo dega jannadii iyadoo qaarkiin qaar kale cadow u yahay oo macnaha insigii iyo shaydaankii cadowbay isu yihiin walakum fi lardi mustaqarun wa mataacun ilaa xiin marka cadowga ugu weyn ee bani aadan uu leeyahay noloshan waa shaydaan sababtoo shar oo dhani isagay ka timaadaa dembiyada isagaa dadka sabab ugu ah isagaa dadka halaag u horseeda iyo khasaaro adduunyo iyo mid aakhiraba dadku wuxuu ugu yeerayaa gaalnimo inay allah moogiyo duulal kale caabudaan oo tawxiidka ay ka tagaan bidcooyinkii buu dadka u qurxinayaa inay alla caasiyaan oo ay khilaafaan yuu u qurxinayaa oo amarka alle ay ka tagaan darsigii ugu horreeyana waa annagii soo sheegnay aayaddii ahayd ina shaytaana lakum caduwun faattakhiduuhu caduwa shaytaanku cadow buu idin yahay ee cadow ka dhigta inamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi asaciir marka in qofkii aabbaha sidaa u galay oo sabab ugu noqday inuu jannadii ka soo baxo inaad adigu ula mucaamalooto sidii qof la jecel yahay waa khalad aad u weyn cadow ka dhigta alla uuna yiri oo caqiida ahaan iyo cibaada ahaan iyo axwaasheenoo dhan waa inaan collaysanaa ninkaa shaydaanka waa inaan collaysanaa dadkii raaca marka wuxuu ugu yeeraa shar buu ugu yeeraa iyo inay ahlu naar ay noqdaan yani inay wax xun ay sameeyaan oo aakhiro ka dhiga kuwa naarti gala inamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi asaciir markii ugu horreysay ee la abuurayba markii ugu horreysay ee maaragtay u gaaloobay ee loo sheegay inuu maaragtay ahlu naar uu yahay u ogaaday inuu alle ka fogaaday wuxuu ballan qaaday inuu dadkii lumiyo ilmihii aadam inuu lumiyo yuu ballan qaaday fa bimaa aqwaytanii buu leeyahy waxaan ku dhaaranayaa allo dhumidda ay dhumisaye la aqcudanna lahum siraataka almustaqiim jidkaadii toosna ayaan u fadhiisanayaa aayad kalena wuxuu leeyahay bimaa aqwaytanii rabbiyow dhuminta aad u dhumisay sababteed lauzayinanna lahum fi lardi walaughyinnahum ajmaciin dhulkii baan maarata wuxuu qurxinayaa buu leeyahay dhammaantoodna waa luminayaa buu leeyahay marka ibliis wuxuu ka dalbay alle inuu u kaadiyo oo cumrigiisa dheereeyo ilaa qiyaamaha laga gaaraayo si uu dadka u lumiyo oo uu ka dhigo dad jahannamo gala rabbi fa andirnii ilaa yowmi yubcathuuna waa kii yiri allow dib ii dhig ilaa maalinka laga soo saaraayo oo yowm alqiyaamaha ah allo uu ka yeela taas qaala fa innaka min almundariin kuwa loo kaadiyo oo aan maaragtay wakhtigaa ka hor dhimanaynin baa ka mid tahay ilaa yowmi waqti macluum yaad ka gaaraysaa kuwa loo kaadiyo yaad ka mid tahay ilaa maalinkaas qiyaamaha laga gaaro markaasuu marka dhaartay uu yidhi dadka wada luminaya kulligood
marka ibnu kathiir wuxuu leeyahay yani alle wuxuu maaragtay citaabayaa dadkii wuxuu leeyahay ibliis waxaan u coleytamay aabihiin dartii iyo idinka dartiin siday marka munaasab u tahay inaad isaga sokeeye la jecel yahay ka dhigataan sida idin munaasabkaahi waa maxay inaad la coleyntataan oo aad khilaaftaan oo aadan ateecinina qofkii weli ka dhigtana alla waa uu haydaarteeyey wuxuu yidhi bi'sa lidaalimiina bedela waxa ugu xumaaday bedel la qaato dhaalimiinta bedelka ay qaateen oo inay shaytaan weli ka dhigtaan waa daacadii allay ka tageen ibliis bay ateeceen iyo maaragtay awlaaddiisii ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen cadowtinimada shaytaanku uu noo qabo waa mid ku abuuran dee allah maarata ku abuuraba sida marka eyga iyo bisadda oo kale ay cadow isugu yihiin waayaa shaytaankuna uga shaqeeyaa inuu dadka fasaad dhex geliyo oo cirib dambe oo xun uu sabab ugu noqdo oo wuxuu xumaayoo dhanba uu u qurxiyo sidaa darteed alla waa uu nooga digay shaytaanku wuxuu yidhi yaa bani aadama reer bani aadamow laa yaftinannakum shaytaanu shaytaan yaanu idin fitnaynin kamaa akhraja abawaykum min aljannati sida uu labadii idin dhashay uga soo saaray jannadii yuusan idinkana diintiina idinka fitnaynin alla marka wuxuu dadkii ka reebay inay maaragtay shaytaanka warkiisi ay yeelaan ila jidka alle yuu kaa leexinayo walaa yasudannakum shaytaanu shaytaankii yaanu idinka maaragtay celinin dariiqii toosnaa iyo daacadii alle innahu lakum caduwun mubiinun cadow cad buu idin yahay horena waana looga digo waxaa la yidhi ha raacinina shaytaanka hana caabudinina alam acad ilaykum yaa bani aadama an laa tacbudu shaytaana ma waanan idin amrin ba alla uu leeyahay inaad shaytaan caabudinina cadow cad buu idin yahay marka waxaan uu ku waswaasinaayo oo uu wax kuu qurxinaayo iska ilaali ha ku dagmin aad baa markana loogu digey waa inaan marka aan maaragtay digiddan looga digay aan ku intifaacnaa oo aanan noqon maaragtay kuwa indhoolayaala oo dhagooyalayaal ah ila cudurdaar allagtiis kuma lihin iyadoo naloo digay inaan haddana maaragtay aanan waxba ku qaadan digiddaas caabudiddaas marka la sheegayo shaytaanka la caabudaayo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa in lagu ateeco waxaas uu kuu qurxinaayo oo cibaadada laga dhigay si macnaha oo macnaha lagu magacaabay si looga fogaado oo looga digtoonaado ila shaytaankii maaragtay raaciddiisu waxay kasoo horjeedaa cibaadada allay kasoo horjeedaa waxaa kaloo lagu fasiray in maaragtay shaytaanka caabudidiisa laga wado macbuudaadkaas kale ee la caabudaayo shaytaanka marka waxaa loogu leexiyey isagaa ku faraaya inaad duulal kale caabuddo oo kuu qurxinayo marka dariiqyo fara badan buu shaytaanku isticmaalaa si uu dadka u lumiyo waxaa ka mid ah baadiyeynta waa maxay waa jidkii hanuunka in aad ka leexato oo aad jidkii baadida aad ku dhacdo qurxinta uu shaytaan kuu qurxinayo darteed oo qalbigaada maarata waswaaska ka buuxinayo lumintaa marka waxaa ugu sarreeya inuu ku guulaysto shaytaanku inaad ku dhacdo gaalnimo diinkii kaa saaraysa allana wuxuu yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maa duuna dalika liman yashaa alla ma dhaafo in cibaadadiisa wax kale lala wadaajiyo wixii intaa ka sokeeya laakiin qofkuu doonu u dhaafaa waman yushrik billahi faqad iftaraa isman cadiima qofkii cibaadada alle wax kale la wadaajiyaa wuxuu maaragtay abuurtay dembi weyn oo been abuur weyn uu sameeyey hadduu shaytaanku taa ka quusto wuxuu ku dadaalaa inuu bidca kugu rido waa darajadii labaad rasuulkuna sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi iyaakum muxdathaati alumuur waxyaabaha la soo darisiiyey ee diinka lagu daraayo oo aan diinka ka mid ahayn iska ilaaliya buu yidhi fa inna kulla muxdathatin bidca maxaa yeelay wax kastoo diinka lagu soo daraahi waa bidco wa kulla bidcatin dalaala bidco kastana waa baadi wuxuu kaloo yidhi rasuulku sal ly slm man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun qofkii diinkeennan ku soo dara waxaan ka mid ahayn waa lagu celiyaa lagamana aqbalo waana ku ciqaab mutaa hadduu taa ku guulaysan waayo soo maah inuu dadkii dembiyadii waaweynaa ku rido yuu ka shaqeeyaa si ay qalbigooda u madoobaado oo khayrkii o dhan ay uga fogaadaan hadduu taa ku guulaysan waayo dembiyada yaryar hadduu ku guulaysan waayo waxyaabihii bannaanaa lafteeda yaa kala fiican markaasuu wax laga fiican yahay kugu mashquuliyaaho wixii fiicnaa kaa mashquuliyaa dadka marka waa u kediyaa shaytaanku oo qalbigu wuxuu uga buuxiyaa inay weligood maaragtay noolaanayaan ay joogayaan si ay aakhiro u ilaawaan macaasidii yuuba wuxuu leeyahay haddaad taa macaasida aad iska samaysaan dhib male jannadii waad gelaysaan toobadii dib u dhiguu leeyahay way ka dhagaystaan marka yani yididiiladaas beenta ah oo shaytaanku qofka u qurxinaayo waxay maaragtay dhaxal siinaysaa inuu qofkii adduunyadii uu ku dadaalo oo maaragtay amalkiisuna uu dheeraado
wuxuu yidhi rasuulku sal slam xadiidkii bukhaari uu weriyey yahramu bnu aadama bani aadamku waa u gaboobaa wayashibu minhu ithnataani labaana maaragtay dhallinyaranimo maaragtay kusii jirta oo ku baaqi noqota maxay yihiin labadaas aan gaboobayni waa alxirsu cala almaali in xoolo lagu dadaalo xoolo jacayl iyo qofkii uu ka buuxsamay iyo walxirsu cala alcumri iyo nolosha dheer qofku inuu ku dadaalo taasi marka waxay ku keenaysaa qofkii haddii wix uu ku dadaalo in maaragta uu daacada alle waxaan hayn uu ku raadiyo oo macsi uu sameeyo oo dadkiina uu dhibaato u geysto si wix uu rabo uu helo haddii marka amalkiisu uu fogaado aakhiradii buu marka halmaamaya adduunyadii buu marka ku maashoodaa toobadii buu ka fogaadaa wacdigu waxba kama tara qalbigiisu wuxuu noqdaa dhagax oo kale ama ka daranba marka shaydaanka amarkiisa ha raacin amarka allana ha ka tegin sababtoo ah haddaad amarka alle ka tagto shaydaanka amarkiisa aad qaadato khasaare tii ugu weyneed baad ku dhacday oo alloo la ateeco waxaa laga helaa wanaag daa'im ah oo weligiis jiraaya oo wax dhiba aanu la soconin shaytaankoo la ateecana waxaa laga helaa xoogaa dhaldhalaal adduunyo iyo wax manaaficaad yaryaroo dhaqso baaba'aya labadiina isuma keeni kartid inaad shaytaankina ateecdo allana ateecdo iskuma keeni kartid waa inaad alla doorataa marka yani cumrigaadu waa u dheeraanaya inuu kugu sheekeeyo ma aha moogid gora dhimanaysa moogid adugu dadka qaarkoodna wuxuuba ka qanciyaa qiyaama ma jirtaba laysu soo saari maayo markaasay mulxidiin iska noqdaan oo wuxuu leeyahay macmacaankii adduunyada yaanu ku dhaafin intaad nooshahay ka faa'iidayso sidoo kale qofkii khayrka inuu wax ku bixiyo yuu ka hor istaagaa oo wuxuu leeyahy war faqiir baad noqonaysaa haddaad khayrka wax ku bixiso marka aakhire la gaarana waa uu kaa beri noqonaya shaytaankii wa qaala shaytaanu lama qudiya alamru ina allaha wacadakum wacda alxaqi wa wacadtukum faakhlaftukum wamaa kaana lii calaykum min sultaan ilaa an dacuutukum fastajabtum lii marka aakhire la tago wuxuu leeyahay alla waxbuu idin yaboohay oo yabooh xaqaya alla idin yaboohay anna yabooh maaragtay beenbeeraan idin yaboohay aniga keygii marka de waxba maaragtay kama fulin ila wax ka jiraan ma ahayn anigu laakiin qasab idinkuma lahayn buu leeyahay waxbaan idin qurqurxiye moogiye waan idin yeeray uun moogiye anigu qasab idinkuma aanan lahayn markaasaad yeeriddii aan idin yeeray baad warkaygii qaadateen buu leeyahay falaa taluumuunii waxba ha i eedinina aniga waxba ha i eedinina aniga waluumuu anfusakum naftiinna eeda ma ana bimusrikikum maanta mid idin gargaaraya anigu ma ahi wamaa antum bimusrikhiya idinkuna ii gargaari ma kartaan inii kafartu bimaa ashraktumuuni min qabl ila wadaajinta ad ila wadaajinayseen awal adduunka marka la joogay maanta waan dafirsanahay ina adaalimiina lahum cadaab aliim daalimiintuna cadaab maaragtay daran bay leeyihiin waa xanuun badan shaytaanku marka dadkii wixii xumaa buu u qurxiyaa oo xatooyadii buu u qurxinayaa zinadii buu u qurxinayaa dilkii buu u qurxinayaa faaxishoo dhan buu u qurxinayaa waxaas marka cirib dambeedka xune ay leeyihiin yuu maaragtay kaa qariyaa kadib markaa wixii ku dhacdana waa uu kaa cararaa kuwii gaaladaa markuu u qurxiyey inay ku soo duulaan maaragtay rasuulka sal slam iyo saxaabadii waa uu ka beri noqday waid zayana lahum shaytaanu acmaalahum waqaala laa ghaaliba lakum alyawma min annaas gaaladii buu marka uu been u sheego wuxuu yidhi maanta wax idinka adkaagan kara ma jiraan buu yidhi wa innii jaarun lakum anna waa idinla jiraa buu yidhi oo mid maaragtay idin gargaaraya ahan welibaan idin ah falama taraa'at ilfi'ataani nakasa calaa caqibayhi markii labadii qolo ay kulmeen oo muslimkii gaaladii gadagaal buu u cararay waqaal innii barii'un minkum beri baan idinka ah buu yidhi innii araa maa laa tarawna waxaan arkaynina ma arkayaa buu yidhi sababto malaa'igtii baa soo degtayoo beder dagaalkii beder muslimka maarata alla uu ku xoojiyey malaa'igtii baa alla ku xoojiyey markaasuu leey innii akhaafu allah wallahu shadiid alciqaab waana beentiis ibnu qayim wuxuu leeyahay shaytaanka makrigiisa waxaa ka mid a inuu maaragtay ku faro inaad dadkii masaakiinta ahaa iyo dadkii dhibaataysnaa aad kala hor timaado weji xanaaqsan oo aadan farax tusinin si aanay kuu damcin oo aysan kugu soo dhiiranin ama haybadaadu maarata inay qalbigooda uga dhicin markaasaad waxaad weynaysaa ducadoodii wanaagsanayd baad weynaysaa iyo in qulubtooda adiga kuu soo iilato oo ay ku jeclaadaan marka shaytaankii akhlaaq xumuu ku farayaa iyo dabeecad xumo iyo inaad maarata dadkaas aadan si fiican u qaabilin buu ku farayaa kuwa xumaana wuxuu ku leeyahay dabeecad fiican u muuji buu ku leeyahay si fiican ula dhaqan buu ku leeyahay si uu sharti baabkeeda kugu furo oo khayrkii baabkiisan uu kaaga xiro waxyaabaha shaytaanku dadka uu ku khaldo waxaa ka mid a oo uu ku siro oo uu ku lugooyo waa fiirada xaaraanta ah in ninkiina haweeney aan u bannaanayn uu fiiriyo haweentiina ay nin aan u bannaanayn ay fiiriso oo ay ku fitnoobaan rasuulkuna wuxuu yidhi sal alla alay slam xadiidkii bukhaari uu wariyey maa taraktu bacdii fitnatan adara cala arijaali min annisaa anuu gadaashay kama tegin buu leeyay rasuulku sal ly slam fitna ragga uga daran haweenka
jaabir bn cabdillahina wuxuu yidhi rasuulka alla sal ly slam haweeney buu arkay faata imra'atahu zaynaba haweentiisii zaynab ahayd buu u yimid rasuulku sal lla ly slam wa hiya tamcasu mani'atan laha iyadoo harag maaragtay ka shaqaynaysa oo hagaajinaysa si uu u noqdo maaragtay mid la isticmaalo faqadaa xaajatahu marka xaajadiisi buu ka gutay uma kharaja ilaa asxaabihi asxaabtiis buu u soo baxay faqaala wuxuu yidhi ina almar'ata tuqbilu fii suurati shayطaan wa tudbiru fii suurati shayطaan yani fitno yaa maaragtay ka muuqanaysa haweenkii faida absara axadukum imra'atan hadduu haweeney arko ay cajabiso oo qalbigiisa wax xuna ay galaan falyaati ahlahu ahalkiisa ha u yimaado faina dalika yaruddu maa fii nafsihi taasi waxay maaragtay ka baabi'inaysaa wixii naftiisa soo galay xadiidka muslim baa weriyey marka wax banaadamka ka dhacaya ee gaalnimo ah dil ah cadowtinimo isnacayb fawaaxishtii oo faafta zinadii haweenka maaragtay isqaawinaya khamradii la cabaayo asnaamtii la caabudayey dembiyada waaweyn lagu dhacaayey kulli waa wax shaytaanku u qurxinayo oo jidkii alle inuu kaa jeediyo yuu ka shaqaynayaa oo dadkina uu fasaadiyo oo ay naartii la galaan alle wuxuu yidhi inama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijsu min camali shaytaani khamrada iyo qamaarka iyo asnaamta iyo maaragtay waxyaabahan istiqsaamka lagu sameeyo oo maaragtay aslaamta la yidhaahdo kulligood waa rijsu min camali shaytaani buu leeyahay waa wax xun oo shaytaanka camalkiisa ka mid ah fajtanibuuhu ka fogaada lacalakum tuflixuuna inaad badbaadaan baad mudan tihiin inamaa yuriidu shaytaanu shaytaanku wuxuu doonayaa an yuuqic baynakum alcadaawata walbagdaaa fi alkhamri walmaysiri wayasudakum can dikri illah inuu dhexdiina dhigo collaytan iyo isnacayb khamradii markaad isticmaashaan iyo maarata qamaarkiiba waad isnacaysaan waad dagaalamaysaan jidki allana waa uu idinka jeedinaya iyo cani salaati salaadii waa uu ka mashquulaya qofku warba uma hayaba qof khamro cabay salaad badana waqti uma hayo umana soo jeedo maskaxdiisuna waa maqan tahay ama qamaarkii ku jira faanuntum muntahuuna ka jooga waxaasa alla u leeyahay shaytaanku marka wixii xumaa yuu dadkii u qurxiyaa wixii wanaagsanaana waa uu u fool xumeeyaa marka halkaasaan kasii wadi doonaa haddii alla yidhaahdo usbuuca soo socda wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين